komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi maanta waxay u gudbiyeen qoraal ay ka hadlayaan waqtiga rasmiga ah ee doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ay ka qaban karaan dalka Soomaaliland. Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac gudoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa ugu horeyn madashaasi ka hadlay waxaana uu caayimay waqtiga rasmiga ah ee doorashooyinka ay ka qaban karaan dalka. Kamadana madaxweyne komishanka doorashooyinka qaranku markuu arkay qorshaha wada jirka ah ee ay isla qaateen komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada qaranku u dhignayd in muddo 9 bilood ah lagu qabto doorashada oo ka bilaabmaysa bisha 9aad kuna ekayd bisha sanaad 2021ka markuu arkay qodobka 6aad firqadiisa 1aad 2aad 3aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta xeer 91/2020 oo komishanka doorashooyinka qaranka ku waajibinaya inay caymaan maalinta iyo bisha iyo sanadka ay doorashadu qabsoomayso. waxaanu halkan kuugu soo gudbinaynaa warqadii cayimaada oo aan ku cayinay 31 bisha shanaad 2021 sida uu sharcigu dhigayana ay tahay in madaxweynuhu ku soo saaro dekreeto 15 casho gudahood komishanka doorashaduna uu sidaa diyaar ugu yahay inuu doorashadii ku qabto iyadoo sharciga iyo dastuurka la waafajinayo. intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa yiri aynu mahadnaqaynaa inoogu soo dhameeyay programkii ama hawshii ahayd diiwaangelinta codbixiyaasha nabad iyo si amaana iyo dadka oo muujiyay inay diyaar u yihiin doorasho iyo xamaasad doorasho jacayl bariga galbeedba qaran ahaan waxa la idinku mahadnaqayaa hawsha qaranka oo qabateen iyo ilaahay guusha inuu dhameeyay oo hawsheeda iyo xilkasnimadeeda iyo dhibteedana idinku qaadateen dhibteedii guul ah soo hoyseen bulad ba qaranku yeelanaysaan daacadana waa inaga joogeynaa maanta tournament arintii sharciyad ah oo doorashada ku saabsan hawlaheeda oo kale waa arin xeer ka qoran oo mudaysan oo maalinba talaabo la qaado xukuumad ahaan iyo shacbi ahaan iyo dawladda waxaan filayaa maanta Soomaaliland xafiis kasta iyo golo kasta inuu diyaar yahay si doorashada ay si wanaagsan ugu ceelin ka qayb galaan marka waa soo dhaweynaa wixii tala iyo arrin la socotaan waxaana inoo ballana intay doorashada ilaahay idamkiisa ay nabad inoogu dhamaanayso inuu dhammaan hareeraha ka joogo waa in galab joogeynaa hawsha waa idin la wadeynaa dhibaatooyinka idin haysta iyo hawlaha iyo culayska ay leedahay iyo pressure-ka waa idin tixgeleynaa wixii aanu idin la qaban karo waa garab taagan. Digib Cabdullaahi Walaal telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa.